kulan waxaan wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel walba oo dunida ka joogtaan iyo si walba muuqaynay maqalka iyaga idin soo gaaraya waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah isla markaana aan diiradda ku saari doonaa wareysi la xiriira film dhawaan soo baxay filimkan wuxuu la magac baxay qiimaha dumarka wuxuuna si gaar ah uga hadlayaa qodbasirada waxaa filimkan director ka ahaa Faisal Bile oo wareysigan marti u ah Faisal marka hore soo dhawo telefishinka Soomaaliya Cable soo dhawo aad oo maasta Ismaaciil adigii telefishinka Soomaaliya Cable TV oo maasantiin soo dhaweynta wanaagsan aad noo sameysay waa gartay Faisal ma ahan markii ugu horeysay telefishinka Soomaaliya Cable wareysi uu ka qaado waa markii labaad san filaya Faisalow filimkan qiimaha dumarka oo muddooyinkan aad u haystay baraha bulshada filimkan ma qiso dhacda horta Ismaaciil aad oo maasantahay oo markii labaad aan Soomaaliya Cable imaanahay isla markaana film aan directorkan kaga hadlayo filimka qiimaha dumarka runtii waa film ka hadlaya xaaladda jirta ka hadlaya xaaladda dhalinyarada loona baahan yahay dabcan in wacyigelin fara badan dhalinyarada looga sameeyo filimka qiimaha dumarka waa qiso dhab ah oo dhacday mar walba tan dhacdo oo hal mar oo kaliya aan dhicin maadaama inta badan arrimaha qodbasirada ee ka dhacaan dhalinyarada Soomaaliyeed qaarkoodna ay sameeyaan qaladaad badan ay ka imaato arrimahaasi marka waa qiso dhab oo dhacday isla markaana bulshada inaan ka wacyigeliyo aan go'aansan saas daraaduna filimka qiimaha dumarka uu ku yimaaday waa gartay filimka inta badan waxaa ka soo muuqanaya dad maaragtay dhalinyaro ah isla markaana iyaga u qoseeyaayo maaragtay filimkan Faisalow goorma kugu soo dhacay inaad maaragtay aad samaysid horta filimkan wuxuu ugu soo dhacay mar baa jirtay dhalinyaro la yahay Soomaan soo dhalinyarada ayaga iska war og mar walbeeto markii odayaasha laga soo tago dhalinyarada in dadka inta badan sheekaysto iska war haya waaye arrimahan waa arrimo jiro mar walbeeto in wiil gabar oo qodbasireysto muddo markuu qabo kadib uu iska furaya qaarkood uur ay ku soo baxaan waxyaabo mar walbeeto dhacdo waaye marka habeenay waxa ku fikiray bal haddii bulshada asaa filmaakar ahaan aad ugu wacyigelisid arrintan oo ay waana badan ay ku qaataan dhalinyarada badan oo arrimahan ku dhaqaaqo balse u aragtaa waa fikiray waxaa ii soo baxday inaan sameeyo film ka hadlaya qiimaha ay leeyihiin dumarka waayo wiil walba markaa weydiisad wuxuu ku dhahaa aniga gabadh walaashiida xumaan murab aniga gabadh qof walba walaash wuu jecel yahay laakiin bal haddii aan dhaho arrintan qof walba maadaama walaash uu jecel yahay siduu walaash ugu damqanayo haddii uu ugu damqado gabdhaha kaleeto soo gabdhahana way wadana kulli waxa waaye caafimaad lagu wada joog lahay nabada lagu wada joog lahay dhibaatana maysan dhacdeen saas daraaddeed waxaan niyeystay bal inaan dhibaatada uu dareemayo wiilkan haddii walaash la waxyeeleeyo in uu dareemo gabar kale intuu xumeyn lahay marka wadada ugu wanaagsan waxay noqotay inaan filmkan sameeyo qiimaha dumarka waa gartay Faisalow waxaad arkaysaa gabadha laatay wiilka isla markaasi gabadha kale xumaatada u geysanayay in durbaba ay u dagtay kaarta isla markaana ay u sheegtay in iyada qodheeda uu problem haysto isla markaana sidoo uu gubanayo waad arkaysay wiilka markii walaashiis u sheegtay in iyada qodheeda arrimahaasi ay haystaan Ismaaciil horta gabadha characterkaas matalaysay waa gabadha filimka hogaaminaysa markii laga soo tago wiilka waana gabadha la rabay inay message gudbiso si wanaagsan runtii u gudbisay haddii gabadhan arrinta aysan sameyn lahayn wiilkan wadada qaladan oo ku socdo muusan ka soo laaba lahayn haddii gabadha ay si toos ugu maalahayd wiilka oo dhihi lahayd gabadha xuna ku sameysay saas yeelin macnaha wiilka ma uusan dareemeen dhibaatada gabadha u geystay laakiin maadaama ay dareensiisay ama asiga ay dareensiisay in dhibaatadan ayad ay ku dhacday waxaa fududaatay in wiilkan isla markiiba uu dareemo inuu qalad uu sameeyey wiil walbeetana walaashiisa wuu jecel yahay inay u nabad qabto oo aysan dhibaato kasoo gaarin marka sidaas daraaddeed waxaa wanaagsan wiil walbeetana inuu sidaasoo kale gabdhaha kale ugu damqado marka wadada ugu wanaagsan ee walaash u marto waxay ahayd waddo wanaagsan taasoo keentay in gabadha uu xumeeyey uu raaligeliyo qalbigeeda iyo niyaddeedana saafi ka dhigo isla markaana dabcan riyada ay lahayd oo jecel usoo raacdan oo u rumeeyo waa gartay waa maxay muhiimadda filimkan uu u leeyahay marka bulshada horta dhalinyaro markii la yidhaahdo film markii la yidhaahdo horta haddii aan dhanka wanaagsan ka fiirino maaragtay wuxuu leeyahay faa'iido fara badan dhalinyaradu haatan inta ugu badan waxay ku jiraan baraha bulshada ay joogaan
qeyb walbeetay daawadaan. Marka haddii dhalinyaradu ay fikirto waxay wacyigeli karaan waxyaabo fara badan. Asa filmmaker ahaanna waxaa u fudud dhalinyaradii in uu wax walbeeto si film ah oo u gaarsiiyo fariin walbeeto warba haddii aan meel soo istaago oo dhaho gabdhaha saana yaa la yeelin gabdhaha intii lagu sameyn gabar oo ku dhalatay so waxa laga yaabaa dadku inaysan fahmin damiinin macnaha ani aan ku hadlayo laakiin haddii aan film ahaan aan usoo diyaariyo dadku ay daawadaan waqti ay geliyaan waxaa laga yaabaa in bulshadu in badan oo kamid ah ay ku baraarugto arrintan in ay tahay dabcan arrin qalad ah loona baahan yahay in bulshadu ay iska saxdo isla markaana aysan arrimahan kale ku dhaqayn. Marka filmmaker ahaan waxa u fudud in bulshadii fariin wanaagsan uu ku gaarsiiyo asa film ahaan. Waqti filmka marka laga soo tagay in baraha bulshada aad u qabsaday oo xitaa dad fanaaniin ah ay baraha bulshada soo dhigayeen dib u soo dhigayeen iyadoo maaragtay dadka idinku mahad celinayeen dhanka kale ma jiraan dad idin la soo xiriiray oo maaragtay falcelin dhinac kale niga timid. Horta Ismaaciil markii laga soo tago maaragtay filmkan film kale oo ka horreeyay isna fariin ahay filmo caadi aan sameeyay jiray oo filmada runtii aad lagu taageeri jiray laakiin filmadan waxay noqdeen kuwa ugu taageeraha badan sababtoo ah bulsho badan oo qaladaad ku jirtay oo filmkan uu ka saaray. Marka dad badan ay la soo xiriiray fanaaniin ah wariyaal ah baraha bulshada qiimo weyn ku leh dhammaantoodna waxay ahaayeen kuwa dabcan dhahayo arrintan sii bogaadiya fariimaha wanaagsan ka hadla fariimaha bulshada dabcan dadka indhaha u noqon karo waa adika qofka jilaaga iyo qofka filim sameeyaha waa indhaha bulshada markii runta laga hadlo. Marka anaga haddii aan wax wanaagsan aan u horseedno bulshadan aan wax wanaagsan aan u imaano wacyigelin wanaagsan aan kaga qayb qaadan karnaa marka taageero aad u wanaagsan aan kaga helnay. Waa gartay filmka oday kuma jiro haddaanan qaldeenin oday kuma jiro waa dhalinyara fariin gudbinta qaab ceenka ayaad u xulataan oo oday maxaa u diiday filmka? Horta filmada dumarka ka hadlayo waa ay badan yihiin filmka qiimaha dumarkaan ugu horreeyay asa film ahaan ani aan sameeyo marka dadka laga soo tago waxaa jira filmo kale oo dhowr ah oo aan rabo in aan sameeyo filmadaasna waxaa ka buuxa waalid laakiinse filmadaas dumarku keliya dan ay diiradda saari doonaan oo dumarku keliya kaga hadli doonaa maadaama dumarka dhibaatooyin badan loo geystay ay jiraan laakiinse aan laga hadlin. Marka ani waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha dumarka aan diiradda saaro laakiinse fariintan qiimaha dumarka waalid ma qoseynin oo waalid ma laysla soo gaarin qofka la wacyigelina wuxuu ahaa dhalinyaro qofka qalad geysanaan wuxuu isla asiga qofka arrinta sameynaan waxay ahayd isla wiil oo ahay marka dhalinyaro keliya arrinta ka dhexdhexda inta badan dhalinyarada inay iska wacyigeliso ayna muhiimadda saas daraadda waalid loogu hayo iyo qof oday. Waa gartay marka muddo intee lagu qaatay marka in filmkan aad soo saartaan? Wallahi inta aan diyaarinayo week maysan ka badnaynin inta jilaayasha xulinayeen intaas 2 week qaadatay inkastoo mar waxaa jirtay inaan filmku duubis aan bilaabay haddana muuqaalo badan aan duubay dhalinyaro oo soo daradana aan ka saaray maadaama iskeeni weysay muuqaalka ani aan rabay iyo castingka jilaayashi iyo muuqaalka ii soo baxay iskeeni weysay dib u dhac ku imaaday ugu dambeyn ay totally markii la isku daro macala soo saaraysiisay hal bil uu ku soo baxay filmkaas. Waa gartay caqabado ma jireen intaasi aad la kulanteen? Wallahi filmkan maadaama uu koobnaa short movie ahaa ma jirin caqabad iga hormaatay. Waa gartay marka dhalinyarada markaasi aad xulanaysa astaamo gooni oo aad jira in aad ku xulato dhalinyaradaasi astaamo way jireen filmkan qiimaha dumarka la yiraahdo astaamo fara badan ayaa la iska rabay dhalinyarada waxaa ku jira dhalinyaro wiilka saaxiibkiisa matalayay dhalinyaradaas waxay talo xun ku siinayaan in wiilkan gabadh uurka uu ku inkiro oo dhaho aniga waqti xaalkan diyaar guur muu ihi ayagana waxay dhahaan adiga guur xilligan diyaar muu tiid maxaa guur waxaas gelinaha marka dhalinyaradaas waxaa loo baahan inay ahaadaan kuwa ciyaalka xaafadda kuwa macnaha magaalka si wanaagsan u kala yaqaano muuqaalkooduna u egyahay dad magaalka gabdhaha iska shukaansado oo waxyaabahaas u eg dhalinyaro noocaas oo kale loo baahan laakiin ma loo baahan dhalinyaro oo mas-uuliyiin u eg oo kale iyo waxyaabahaasaan ku dhaqaaqin haddii muuqaalka uga daro miskeenayso marka astaamahaasaa looga baahnaa. Waa gartay haddii aan maaragtay wariyaala ku jiro filimka ilaa iyo dhowr wariyaa ku jiro 2 wariye haddaanan maaragtay maxaad ku xulatay wariyaasha? Horta asxaabxaan waa iskaga dhaweyn dadka sidoo kalena waa dadkii ugu foodaa aan helay inay filmkaas ay ka qayb qaataan sidoo kaleeto doorarka aan u rabane waa dadka soo bixi kara markaas hadda gabadha hani lahay filmka
iyada character koowaad waa gabadha dabcan la isdhihi karo booskaas way ka bixi kartaa ama fariintaas way gudbi kartaa maadaama iyadana weli ay tahay fariimaha wacyigelintan way ka qayb qaadan kartaa si daraadda filmkan ugu soo diray kaamiradiyo maaragtay xiriir ka dhexeysa saas darteed ugu soo dartay maadaama xiriir kaamirada ka dhexeysa waa gartay waa tahay Faisalow nin daayara tahay markaasi Soomaaliyana dadka hadda waxaad ka mid tahay inkastoo aanan u kala aqoon directorada maaragtay iminka aadka loo jecel yahay filimada aad soo saartayna dad badan aad u cajiib gelisay dhanka kufsiga oo qaybo badan oo kamid ah Africa farabaan ku haya maxaad kaga qorshaysan horta runtii kufsiga Africa qaybo badan kamid ah caqabada aad weyn ku haya Soomaaliya xitaa waxay kamid tahay wadamada ugu badan kufsiga oo ka dhaco horta filimkan wuxuu hordhac u yahay arrimahaas inaan kaga hadalno qorshe weyn aan nooga degsan inaan ka hadalno kufsiga ha ahaato fariimo qisooyin dhaba oo dhaca kufsi ah oo waxba laga qaban qisooyin dhaba oo dhacay oo wax laga qabtay qisooyin dhaba oo dhacay oo la xaliyay runtii inta badan Soomaalidu xalis bay isku daydaa intii wax toos wax looga qaban lahay tan qiimaha dumarka markii la yiraahdo arrimaha qubtirada waxay kamid tahay kufsiga department kamid ay tahay maadaama qofkan heshiiskii lala galay heshiiskii looga baxay waxay lama tahay in qofkii la xumeeyo kaleeto way qeyb ka noqonaysaa marka arrimaha kufsiga runtii waxyaabo fara badan aan uga diyaarsan xitaa sheekooyin badan oo kufsi ku saabsan oo aan kaga hadlayno oo wacyigelin aan kaga sameynayno bulshada ayaa noo diyaarsan inaan diiradda saarno arrimahaas ma jira dhawaan filim kufsi ka hadlayo oo qorshaha idinkugu jira inaad soo saartaan wuu jiraa filim kufsi ka hadlayo weliba aan diiradda ku saarayo arrimaha in gabadha la xumeeyo odayaal ay ka hadlaan waxyaabaha ugu badan oo inta badan Soomaalida ka dhacda waxa kamid ah in gabadhii la xumeeyo la kufsado laga yaabay in odayaal ay ka heshiiyaan arrimaha ugu badan in laga wacyigeliyo bulshada u baahan arrimahaas kamid waana arrimaha ugu horeeya aan diiradda saari doono inaan ka hadalno waa gartay marka waa maxay doorka dhalinyarada ay ka qaadan karaan wacyigelinta in ka badan odayaasha waxay kamid tahay ama ugu muhiimsan waxa waaye dhalinyaradu ayaga is og inta badan odayaashu waxa laga yaabaa waqtigoodii way qaateen waxa laga yaabaa arrimahan inaysan waxba ka aqoon hadda arrimaha qubsirada qaabka u dhacday xitaa odayaashu inaysan ogeyn xilliyada hore inay ogaayeen gabadhan qaabka loo kasbaday hadda qayb wacyi waqtiga lagu jiro inaysan aqoon u lahayn hadda qayb waxa ku jirta sheekaysanayna asxaabtay dhahayaan warqabtii jaziira wadaayo waaye jaziira in la aado oo gabadhii wiil isku raacaan had odayaasha qaarkood ma ka warhayaan annaga ka warhayno marka dhalinyaradu waa dadku inta ugu badan ka qayb qaadan karo wacyigelinta maadaama ayaga is og yihiin ayaga haddii fikiraan waa ayaga garan karo wadada wanaagsan ee wacyigelinta kaga qayb qaadan karaan marka aad rabto inaad film soo saarto oo ama qiso ka hadlaya yaa kaa caawiya runtii mar walbeed waxaan u mahad celinayaa cid aniga wax ii matasho oo jilayaasha ayaga dabcan mar walbeed mahad iska leh sababtoo ah ayaga waa dadkii aniga masiidkii gudbinayay aniga qofka kaamirada gadaasheeda ka qeylin lahaa laakiin ayagaas dee wixii sidii ani aan rabay u sameeyaan runtii aad uga mahadsan yihiin dadka inta badan uga caawiyan waa kuwaas waa jilayaasha waa dadka markaasi kula jilaya wax ii matalaha dadka wax ii matala kaa caawiya waa gartay ma jira director markaasi ama Soomaali ah oo aad ku dayato ama ajaanibta dhankooda haddayna aan aadno horta aniga hal director ah jiraan hal film sameeyo oo aan saaxiibo dhow nahay oo aan halkan ka salaamayo Maxamed Raahi la yiraahdaa wuxuu joogaa dalka dibadiisa waa film sameeye film wuxuu sameeyay Munan la yiraahdo oo dalka Austria lagu soo bandhigay sheekada ugu wanaagsan oo qaatay filmkaasi arrimaha dumarkuna isna ka hadlayay directorkaas aan saaxiibo dhow nahay tala ahaan haddii la yiraahdo iyo waxyaabaha aan iskaga baahano directorkaas iskala wadaagno Soomaali ah waa gartay ma jiraan kuwa ajaanib marka aad kaga dayato qashka qaabka filmaanta u sameynayaan iyo way jiraan Karan Johar director la yiraahdo oo film sameeyay Hindi ah directorkaas ay jiro laakiin as a film ahaan ama dabcan markii aan film sameynta kusoo biirayay inta badan ayaga ku dayanay laakiin hadda taan isku filnaado waxaan rabaa sheekooyinkeena Soomaalida inaan gudbiyo sababtoo Hindi ayaga waxa waaye dhaqankooda si wanaagsan noo bareen waxyaabo ka dhacsi wanaagsan noo bareen marka Soomaali ahaan in anagana barno waxyaabaha naga dhex dhaco inaan gudbino waa Faisalow film markaad yeeshaan hadda wuxuu ku kooban yahay Soomaaliya maadaama Soomaali aad maaragtay luqadii aad ku hadlayseen aysan Soomaali dhaafsaneen
midin qorshaysiin in caalamkaad ka gadaan inta filmaan aad soo saartaan oo luqado kale markaasi lagu turjuma aad iyo aad waynoo qorshaysan tahay adoo luqad kale ku turjumin aad filmkaaga caalam gaarsiin kartaa waxaa noo qorshaysan in filmadeena aan u bedelno inaan international ka dhigno sidoo kaleeto filimada caalamka markaan geysa inaan subtitle u sameyno si caalamka u daawadaan xitaa ilaa iyo mustaqbalka waxaan rabnaa inaan dabcan tartana gelino tartana caalam anaga halkaan joogno inaan tartana aan gelino sababta sheekooyinka Soomaalida runtii waa sheekooyinka ugu wanaagsan amaba ay dadka aad iyo aad u xiiseeyaan ma jiraan tartamo aad ka qayb gashay amaba tababaro oo dalka dibadiisa ah maya tababaro dalka dibadiisa ka qayb gala ma jirto tartana aan ka qayb qaadana ma jirto gudaha waddanka un baad ku baratay intaan hadda adiga ahays waa gartay qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay ma jiraan fariimaan kale oo wacyigelin ah oo ku qorshaysan inaad samayso aad iyo aad Ismaaciil sidaan hore kuu sheegaba arrimaha dumarka inaan ka hadlo wacyigelintaas sidoo kaleeto waxyaabo fara badan oo amniga ku saabsan oo dhacbaraha bulshada ka dhex dhaco si walba ay u qaatay inaan sameeyo si bulshada ay ugu wacyigelismaan wacyigelinaas dhan oo ii diyaarsiiyeen insha Allah in sanadkan la soo shirtago waa gartay mustaqbalka maxaad rajeynaysaa Faisal mustaqbalka waxaan rajeynayaa horto doorkayga film sameey markii la yiraahdo inaan horumariyo sidoo kale dhanka filimada oo aan qaabilsanaanay in Soomaaliyeed ay ka noqoto mid heer sare ah oo dadkan wacyigelin ka qaataan adduunkana uu fahmo filmadeena oo la diiwaan geliyo oo noqon dad film wanaagsan soo saaro taas oo mustaqbalkayga insha Allah waa gartay ugu dambeyn fariinta yaad u mahad celinaysaa markaasi waxaan u mahad celinayaa cid walbeeto marka aan sheeko soo saaro ka qayb qaadato inay jisho waxaa kaloo mahad celinayaa ustaadkii Maxamed Raahoy oo aan hore kugu sheegaba film sameeya ah waa gartay annagana aad baan kugu mahad celinaynaa Faisalow sida aad maaragtay markaasi aad nagu ogolaatay inaad wareysigan studio inta nagu soo booqato markaasi aan kula yeelano guud ahaan intaas ayaan kusoo koobayaa wareysigii gaarka ah isla markaana uu martida noogu ahaa hal abuur director Faisal Bile guud ahaan intaas ayaan kusoo koobayaa wareysigaasi waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah Ismaaciil Aadan Bariise dhanka farsamada waa Siid Cali engineer Siid Cali waa kaamirada Ismaaciil Allright tan iyo kulanto dambe oo wareysi aynkaan oo kale waxaan kaga tagayaa sida iyo amaana Allah